السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صحبتي دقالقة ميل بدون جوجتين وولا كينج فايبا يوتيوب كداونيسنا كينج فايبا وشل سلو ودا نوع عصبتاي حتى نوع عصبنا واد ما سنتاي سيده قرحت بدن ee aad nool jirsid aad waqti aad noo bixinaysid mar walba doonaysid hadii aad noo cusubtahay mar walba soo dhawow isku day inaad button-ka hoose ee subscribe qorta aad riixdid ee aad gambaleel ku furtid si aad mar walba muuqaalan soo gelin ula socotid ka soo geebtaas bariyaha oo maqnaa meel aan jirin wallahi lama garanaya ma maqnaan laakiin youtube kan ka maqnaa waxbu weyn Soomaali dhigin ani kama soo dhex maqnaan marka maanta ayaan soo noqday Allah ya mahad iskale ee allihii anagu caafimaad qabno isku soo keen celiyay mar labaad hadii aad xanuunsan tahay markaad muuqaalkan daawanaysid ilaahay ku caafiyo hadii aad xanuunsanayna caafimaadka Allah ha ku siyaadiyo okay maanta waxaan hayaa talooyinka ee aad kulli hadii uu qof kula taliyo taladaas qofna waa qaataa qofna wuu ka tagaa qofna wuxuu dhahaa talan way anfactaa qofna kulli wuu ka tagaa marka talooyinka maanta waxa waaye talooyinka ugu wanaagsan ruuxa bini'aadamka noloshiisa talada ugu horeysa waxay tahay ka digtoonow ka digtoonow weliga ha la kulmin saddexdaas hadii aad la kulantid kulli waxay ku horseedayaan halistaas oo in aad albaabka jahannama aad qaraacatid ee aad isku furtid saddexdaas waxaa kamid ah inta agoonta ilanta waalidka ilinta qofka la dulmiyay saddexdaas ilimood hadii aad la kulantid kulli halis ayaad ku sugan tahay alin unta ay garanay meel ku geynay laakiin waxa la sheegay in aad halis ku sugan tahay saddexdaas hadii aad la kulantid seen ku dhahay mid ugu horeysa waxa weeyaan qof la dulmiyay hadii aad ilintid la kulantid halis ayaad ku sugan tahay ilinta agoonta hadii aad la kulantid halis ayaad ku sugan tahay ilinta qofka waayelka ee waalidka aabaha amase hooyada hadii aad la kulantid halis ayaad ku sugan tahay waliga dhaawaxa u geysanin waayel amase qofka da'weyn hadalka ku hadlayana dhexdaha ka galin waayo mar ayaad gaari doontaa darajada amase daad uu taagan yahay maalintaad ayaad ogaan doontaa hadalkii aad ku jaraysay qofka da'weyn markii uu kugu jaro hadal qofka da'yar hadii aad aragtid qof aad jeceshahay u dhoolacday waayo dhoolacadayntaasi waxa uu ogaan doonaa qofkaad in aad jeceshahay ee inta aad jacayl u qabtid u dhoolacaday cadowgaaga hadii aad u dhoolacadayso wuxuu ogaan doonaa awoodda aad leedahay dhoolacaday qofkaad aqoonin markuu ka yimaado ama si dad aad isku cusubteen markay ka hor imaadaan waayo alle ayaa ajir ku siinay intii fahamta ayaa yar wixii ay dadku yiraahdaan gadaal ha u fiirin hadallada lagu dhaha ee qof uu ku dhaha gadaal ha u xisaabin ee haysdiin hadalkan qofkan muxuu ka wadi muxuu ku dhahay maxasi sabab ayuu ku dhahay hadalkan waxay abuurayaan fikir dheer markaad fikirtid hadalkaad waxaad u dareemi kartaa qaladkaas ee keeni kara cuqdad nafsiyan ee aad u qaadaysid dadka kale iska ilaali weliga in aad hadal lagu yiraahdo gadaal aad u fiiriso weliga laba mar qof ha weydiisan wax sababtoo ay marka koobaad waxay ku tahay sharaf marka labaadna waxay ku tahay dulinimo iska ilaali weliga in aad qof laba jeer ka hortagtid hal mar sharaf ay ku tahay marka labaad waxay ku tahay dulinimo okay hadii ku anfacdo taladaas aad u maasantahay hadii ku anficina kulay waa ra'yahanta ee aragtidaada ee aad ka garatay inay hadalladaas ku anficin waad maasantahay sida qurux badan ee aad u daawatay muuqaalkan aad ayaan kaga mahadcelinayaa waxaan aduraal kaabariya in